بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام waxaan doonayaa inaan ka hadlo astaamaha lagu garto uurka bilowga ah. waxaa jiro calaamado badan oo sheegaya in haweeneyda uur qaaday, hase yeeshee calaamadaha kaliya kuma filna oo tusaale cad uma noqon karo in uu uur jiro. marka hooyada waxaa laga doonayaa inay baaritaan ay sameyso si loo xaqiijiyo inuu uur jiro. marka calaamaduhu waxay soo muuqdaan bilaha hore, qaar kalena waxay soo muuqdaan bilaha dambe ee uurka. marka waxaan ku hormarayaa calaamadaha soo muuqda bilaha hore uurka. calaamadooyinka uurka kuwa ugu cad uguna saxan waxa weeye caadadu istaagto wallow ay jiraan sababo kale oo caadada istaaji karo iyadoo aanan jirin uur. sidoo kale hooyadu markay uurka qaado mararka qaar waxaa ka yimaada dhiig yar oo aan ahayn dhiigga caadada. waxaa loo yaqaanaa implantation bleeding. dhiiggaas wuxuu yimaadaa marka ay faxlistu dhacdo ay kulmaan ugxaanta hooyada iyo spermka ama biyaha aabuhu markay kulmaan ayuu yimaadaa dhiiggaas, waxaana loo yaqaanaa implantation bleeding. sidoo kale barar iyo xanuun ama danqasho ku yimaada naasuhu, maxaa yeele hormoonada jirka ayaa badanayo, sida estrogenka iyo progesterone ayaa badanaya. hormoonada markay bataan jirka ay isbedel ku ridayaan. sidoo kale mararka qaar waxaa arkaysaa naas dushooda waxaa ku arkaysaa xididadii dhiigga ayaa ku arkaysaa oo fartaada markaa saartid waa dareemi kartaa. marka dhammaan waxaa loo aaneynayaa marka hormoonada isbedelada jirka ay ku sameeyeen. sidoo kale gabadhu markay uurka qaado waxay dareentaa xanuun oo waxay ka dareemaysaa marka qeybaha hoose ee caloosha. taas waxaa u sabab ah yani minka wuxuu isku diyaarinayaa in uu fido ayuu isku diyaarinayaa. sidoo kale aroorta hore marka hurdada kasoo toosto waxaad dareemaysaa labalabo aan matag lahayn. marka marxaladan soomaalidu waxay u yaqaanaan walac ay u yaqaanaan. inta badan waxaa la arkaa 14 isbuuc ee ugu horeeya uurka ayaa la dareemaa. sidoo kale hooyada waxa isbedel ku imaanayo dabeecadaheeda markii loo eego bulshada ama qofka ee la nooshahay. sidoo kale marka ay marxaladaas ku jirto hooyada waxaa zaa'id noqonayo dareenka urteeda ayaa zaa'id noqonayo oo waxay dhibsataa cuntooyinka qaar ama cuntooyinka qaar la dalcayo ayay dhibsanaysaa, kuwa qaarna way jeclaanaysaa. marka arrimahan oo dhan waxaa loo aaneynayaa isbedelada ku yimaada hormoonada ayaa loo aaneynayaa. sidoo kale waxaa dabiici ah iyadoo aanan cudur uu jirin in hooyadu dareento daal iyo tabardare iyo inuu dareento. taas marka waxaa u sababa jirka ayaa waxa ku badanayo hormoonada ayaa ku badan, waxay keenayaan marka jirka inuu overactive u shaqeeyo oo aada u shaqeeyo oo hooyada daal badan ee dareento. sidoo kale waxaa ziyaada heerkulka jirka ama kuleelka jirka ayaa kaca. hooyadu waxay dareemaysaa kuleel zaa'id ayay dareemaysaa. marka qaar waxay ku dhehaysaa korka ayaa ihurayo. marka taas waxaa u sabab ah temperatureka jirkoo kacay ayaa u sabab ah. sidoo kale calool fadhi ama saxradoo socoweyso. marka iyana taas waxaa keeni karo hormoonka progesterone. yani hormoonkan progesterone wuxuu xiidmaha murqaha xiidmaha wuxuu ku sababayaa inay relax noqdaan. maxaa yeele cuntadii markay marayso xiidmada ama dhaciraha markay marayso si tartiib ayay isaga maraysaa, wax ku qasbaa male in cuntadii ay socoto. taas marka waxaa ka dhalanayso constipation ama calool fadhi ayaa ka dhalanayso. sidoo kale madax xanuun aada u daran ayay hooyadu dareemaysaa, maxaa yeele jirkii iyo ayaa zaa'id u shaqeynayo. hormoonadii markay jirka isbedel ku sameeyaan jirki aad ay u shaqeynaya, dhiig badan ayaa lasoo saaraya. marka hooyadu waxay dareemaysaa madax xanuun aada u daran ayay dareemaysaa. intaas waxay ahaayeen astaamaha soo muuqda bilaha hore ee uurka. intaas kadib waxaan u gudgalayaa astaamaha yimaada ama calaamadaha yimaada bilaha dambe ee uurka. bilaha dambe ee uurka hooyadu waxay dareemaysaa laabjeex. taas waxaa ugu sabab ah uurjiifka ayaa wuxuu cadaadis saarayaa caloosha, cuntadii ayaa kusoo gudoomaysa hooyada. sidoo kale kaadi badan oo mararka qaar baxsato. taas marka waxaa u sabab ah ilmagaleenka ayaa wuxuu cadaadis saarayaa kaadiheesta. yani gabadha intaysan uurka qaadin ka hor kaadiheesta ayaa koraysay, minka ayaa hooseeyey. markay uurka qaadana yani way isbedelayaan, minka ayaa sara marayo, kaadiheesta ayaa hoos soo marayso. sidoo kale kaadida badan waxaa sababeyso jirka ayaa wuxuu soo saarayaa dhiig badan ayuu soo saarayaa. sidoo kale waxaa suurtagal ah hooyada markay cadeysanayso in ilkaheedii oo dhiig uu ka yimaado, maxaa yeele dhiiggii yani ciridka gaaraya ayaa badanayo. so sensitive waa marka dhiig inuu ka yimaado ayaa suuragal ah. sidoo kale waxaa dhiig ka yimaado sanka. xididadii yaryaraay ee dhiigga ayaa way bararayaan, waxay unug leeyihiin marka inay dilaacaan ama ragjar ku yimaado.
sidoo kale diirma ayaa hooyada kasoo muuqanaysa oo ka bilaabmaysa xudunta ilaa bisiqda. waxaa loo yaqaanaa laaniya alba ayaa loo yaqaanaa. hooyada markay dhasho inta badan wuu ka baaba'aa. sidoo kale hooyada waxay isku aragtaa barar ku yimaada lugaha. taas waxaa u sabab ah ilmagaleenka ayaa wuxuu cadaadis saarayaa unugyada wareega dhiigga ayuu cadaadis saaraya. sidoo kale hooyadu waxay dareentaa dhabar xanuun, baahi badan iyo hurdadii xumaatay bilaha dambe. ugu dambeyntii calooshii ayaa soo buuranaysa oo hooyadu waxay dareentaa dhaqdhaqaaqa caruurta. inta badan dhaqdhaqaaqa waxay yimaadaan 24 usbuuc kadib wixii ka dambeeya ayay yimaadaan. meeshin ku dheh ama xagga hoose ugu wac qof walba ay jeceshahay in uu muuqaalkan ka faa'iideysto. share gareena ma doonaysaa inaad ka mid noqoto asxaabteeda? fadlan subscribe saar YouTube channelkayga. sidoo kale like dheh pagekayga si aad u heshid cashiro cusub iyo talooyin caafimaad oo aan goordhow soo gelin doono insha allah. wixii su-aalahana iyo cudurada aad doonaysid inaan kasoo hadlo waxaa igu soo diri kartaa emailkan. intaas ayanu kusoo gabagabeynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala